السلام عليكم. عليكم السلام. اسكور هوا. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga dheehanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka Hidaha Hal Abuur. Barnaamijka Hidaha Hal Abuur waa barnaamij toddobaadle oo aan diiradda ku saarno hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheera, dhinaca kaamirada iyo farsamaynta barnaamijka oo saaxiibkay Cabdulqaadir Jaamac Gaboobe. daawadayaal barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo booqanay xarunta horumarinta haweenka ee Kismaayo oo ah xarun tababaro dhinaca xirfadaha loogu sameeyo haween Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo. sidoo kale xaruntan waxaa ku kaydsan agab badan oo dhinaca hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed agabkaasi oo loo isticmaalo nolosha caadiga ah ee maalinlaha ah. xaruntan waxaa aasaasay haween Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo. agabka meeshan yaala ayaan doonaynaa inaan ka xog wareysano haweenkan oo muddo dheer ka hawlgelaya xaruntan ilaa haddana gacanta ku haya. luul cali balwo oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee xaruntan gacanta ku haya ayaan doonayaa inay noo sharaxdo agab aad u tiro badan oo meeshan yaala oo laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed inay si fiican u garanayaan halka dad kalena ay ka bogan doonaan maanta magacyadooda iyo waliba waxa loo isticmaalo. hooyo luul ku soo dhaw barnaamijka iyo Jubaland TV. waa ku dhawaa barnaamijka boqolkiiba boqol. aad baa umahadsan tahay hooyo luul. meeshan waxa yaala agab badan oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed bal agabkan aan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee na daawanaya inaan u sharaxno magacyadooda iyo sidoo kale waxa loo isticmaalo oo laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed inaanay garanaynin halka dad badan ay garanayaan. marka si looga wada faa'iideysto fursadan maanta waxaan doonaynaa idin ku soo booqanay in agabkan meesha yaala dadka Soomaaliyeed aynu ka dharjino magacyadooda iyo waxyaabaha loo isticmaalo intaba. marka aan ku bilowno ee ka geeska yaala. kan waa ameel baa la dhahaa. waxaa lagu maalaa lo'da. waa ameel lo'eed. kan geela iyo kan lo'da way kala duwan yihiin. kan lo'da xoogaa afkiisa waa urursan yahay laakiin geela waa waasac afkiisa. marka kan lo'da loo isticmaalaa wuxuuna ka samaysan yahay geed. geedkaasoo laga keeno duurka baadiyaha kore. waa gartay waxa tirkan waa ameelkii lo'da loo isticmaalayay wuxuu khaas u yahay in lo'da lagu maalo. marka aaway kii geela lagu maalayeen. waa kankii geela. waa gartay geela waa kankiisa uu ka afbalaaran yahay oo xoogaa kaas afkiisa uu yaro urursan yahay kana uu ka afbalaaran yahay waa kii geela. waxaa la yidhaha ameelkii geela waa kan. waa gartay hooyolul aad baa umahadsan tahay. labadan ameel aad bay isugu eg yihiin. wayna yar tahay ama way dhib badan tahay qof aan garanayn inuu kala garto in kana loo isticmaalo kana geel loo isticmaalo. sababta kaa geelana afkiisa loo weyneeyay kaa lo'dana afkiisa loo yareeyay dadka muu sheegi kartaa? waxa lagu sheegi karaa waxa waaye geela waxaa loo qaadaa macnaha ninka wuxuu saaranayaa jilibka marka saas ugu maalay waa inuu labada gacmood ku qabsadaa. waxa loo baahay inuu afkii weeyahay. laakiin lo'da waxaa la gelinayaa labada lugood baa lagu qabsadaa. saana u qabanaysaa saasaad ugu maalaysaa marka saasay ku kala duwan yihiin. labada hab loo isticmaalaya laba haboo kala duwan ah. midna jilibkaa la saartaa midna labada jilib baa lagu qabsadaa. saasaa loo isticmaalaa. saasay u kala duwan yihiin afka ugu kala duwan yahay. aad iyo aad baa umahadsan tahay. aan ku bilowno aan ku xijino kan daboolan sheegan daboolan. tan waa dhiil waaye. dhiil oo macnaha la qurxiyay la farsameeyey. waxa waaye waa ka calankii Soomaaliya macnaha maadaama calankii jaceelkiisii dhiilihiin waan ku dhiganay maadaama calankii Soomaaliya uu yahay. marka waan saa wax ragaynayna wuxuu ka samaysan yahay waa geed. maxaa loo isticmaalaa marka dadka markaa u sheegay? waxaa loo isticmaalaa caanaha lagu shubaa.
ilmaha caanaha loogu shubtaa caanaha cadayska sida lagu shubtaa caanaha loo isticmaalaa. aad baa u mahadsantahay. aan ka soconno taa kasii qurux badan oo aan rajaynaya dhiiltaayana. haa iyadana waa sidii kuwii adaayaad arkaysoo kaloo geedka ahaa. intaan hadda saaran waa annaga inaan u samaynay. maxaa yeele waxaan ku samaynay caleel waaye waxaa laga helaa baddanka laga keenaa. caleeshii badda waaye calankii Soomaaliya sidoo kale ayadoo dhanba horta waxaan ka dhignay midabkii calankan u yeelnay astaanta haddana calankan ku dhejinay caleesha annaga ku xirnay bahalada annaga u samaynay laakiin markeeda hore geedka kuwii hore geedka aan ku tusayno kale ayadana kamid ahayd intaan xirfada kale annaga dheeriga annaga u sameeyno waaye. marka wax idin timi iyadoo sidii geedka looga soo gooyaa ka bacdina caleeshan oo badda laga soo guray baad aad saarteen waad ranjigaas aan mariseen saana u qurxiseen. saana u qurxinay waxa waaye nimo dad qaasaha jooga oo macnaha arintan macnaha qurxintan u gaaraho u dhibnaa sameeyay. marna ayadoo sameeysan baan soo iibsanaa. waa gartay halkan waxa ku xidhan xarigana ku xidhan xariganu ma aha xarigii magaalada dadkana daawanaya maxaa u sheegi kartaa? xarigan ma ahan macnaha xarigii maxaa ahayd baadiyaha ma aha. xariga baadiyaha waxaa laga sameeyaa haraga xoolaha laga sameeyaa ama geela ha ahaado ama lo'da ha ahaado waxaa laga sameeyaa laakiin ma aha kan waa boorsooyinka sida macnaha kuwaan magaalada laga isticmaalo kale waa macnaha waa mida annaga ku xirnay. si wanaagsan taasna waa dhiishi oo la mida tii hore. waa gartay taa kale iyada maxay tahay oo daboolan? waa iyadii oo kale tan waxa waaye macnaha tan waxaan u sameynay xargaasan qaasaan u sameynay laakiin sameyskeedii oo laga keenay baadiyaha waa bay tahay tan wax bedelaada anagu xargaasan ku bedelna kaliya ayadoo sameyskan baadiyaha dalab aan aan dirsanay waaye naqshada aan dhiibanay nimanka qoraha sameeya bahalada sameeya marka mid walba nooca aan idhaahno noogu soo sameeya geed baan laga soo qoraa. marka tan waa isla dhiishi waa ka taxaga naga dhig. halkan waxaa kale oo ka muuqda qalab kale oo aad u qurux badan oo aan dareemayo in la isku isticmaalo waa laba shay isu guda jira. bal u sharax dadka adigoo tan ka bilaabay. tan waxaa la yiraahdaa kur waxaa loo isticmaalaa bunka iyo daangada macnaha hadaan anigu reer waama nahay isticmaalkeena reer waamaha waxaa loo isticmaalaa bunka marka odayaasha markii bunka loo dubo iyo daangada loo geeyaa caanaha loo geeyaa waa markii ay bunkay marsadaan oo daangadii ay jabsadaan bunka jabsadaan daangadii cunaan bay haddana tooraan daangadii iyo bunkii iyo waxa la isku daraa caanaha marka waxaa la yiraahdaa toor waxaa loo isticmaalaa marka fandhaalka lagu cuno. marka fandhaalku uu geed buu ka samaysan yahay wuxuu u taagan yahay malqacadi. waa gartay waa sida hadda saliidda kan hadda ku jira waa bunkii oo saliidii ah marka waxaa loo isticmaalaa arintaasaa loo isticmaalaa haddii la rabo xitaa ilmaha yararkaa waa lagu siiyaa markii aad weel weydo baadiyaha aad joogto weel ahaan baad u isticmaali kartaa. cuntada waa lagu siiya waxaa jiray kan oo kale mid u eg baa jira oo inta badan dadku isticmaalaan oo cuntada caadiga loo isticmaalo. waa haynaa kaasna waa yaalla waatan xeeraa la yidhahdaa tan waxaa loo isticmaalaa raashinkaa lagu cunaa tii hadaayata waxay ahayd kurbe ahayd tanna xeero waaye. taa waxay khaas u ahayd bunka iyo waxyaaba yar tanna waa cuntada caadiga tanna waxay khaas u tahay cuntada caadiga ah baa lagu nooc walba noocay doonto waxay diidaysa mal waa weel loogu talagalay waa sidii saxanka reer magaalka ay ku shubanayeen raashinka oo kale marka reer baadiyo markay yahaan hidiya dhaqanka kana u ah saxankii. waa gartay xeeradina waynu fahanay si fiican baynu garanay aan ku darno marka kan aan soo qabanno kan waan u maranayo inuu isagana maartay uu macna gooniya xambaarsan yahay. shiikaa la dhahaa waxaa lagu cabaa shaaha waxaa lagu cabaa caanaha ilmaha lagu siiyaa marka hore shaaha lagu cabaa waa koobka baadiyaha reer baadiya markii la yahay koob kale malaha koobkooda waa shiikahan bahalkan lagu cabo ilmaha caanaha lagu siiyaa dadka shaaha lagu cabaa kirligaa lasoo karinayaa nin walba weelkiisu wataa waana wuxuu ka samaysan yahay geedka arkaysid. si fiican kaana waan fahanay runtii wuu ku habboon yahay kan in wax lagu cabo aan ku darno marka oo aan soo qabanno kan. shiikahan asaga waxaa waaye shiikaa la yidhahdaa waa arimaal waa weelka xagga magac way ka yihiin laakiin isticmaal kula bedelan yihiin.
isticmaalkay ku kala badan yihiin kan arigaa lagu lisaa waa weelka ariga maadaamuu caanaha ka caana yar yahay geela iyo lo-da marka si ka arigeed kan arigaa loo isticmaalaa caanahana waa lagu cabaa dadka gawaaweyn waa lagu siiyaa caanaha waa lagu cabaa arigana waa lagu maalaa labadaas shayba waa loo isticmaalaa shay weyn baa halka agteena yaala dhexdeena oo aan dareemayo inuu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan marka baadiyaha la joogo bal dadkana daawanaya u sharax kana tan waxaa waaya dhiisha weyn oo lagu lulo caanaha lagu lulo way kala weyn haanta weyn caanaha lagu lulo waaye macnaha haamaha midda kuwa caanaha lagu lulo midda ugu yartan caanaha lagu lulaa saab bay leedahay saabkeeda la geliyaa caanaha lagu shubtaa garoortaa lagu ruxaa markay caanaha fadhiistaan waa lagu ruxaa waa haantii caanaha laakiin waa haanta caanaha oo wayna yar tahay basaan arko sidoo kale waxaa ka maqan saabkii oo ahaa kii in haweenku qabsadaan loo isticmaalayay waa sax marka isaga hadda saabkii ma laga daayay mase maya lagama deynin saabkii wuu yaalaa waa loo isticmaalaa markii caanaha lagu shubaa saabka la geliyaa oo caanaha ay ku diyaar noqdaan waad soo qaadanaysaa dhiishaad gelinaysaa caanahaad ku shubaysaa saabka markaasaad ku xiraysaa markaasaad ku ruxanaysaa marka waa kuwa caanaha lagu ruxo midda seeska ugu yar waay kan kuwa kale way ka waaweyn yihiin hooyaluul haanta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu caansan marka laga hadlayo dhaqanka soomaaliyaha ee baadiyaha halbowlaha waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka baadiyaha lagu isticmaalo caanaha lagu lulaa caanuhuna waxaa ka soo baxaya subagaasoo siyaabo kala gedisan loo isticmaalo oo ilaa magaalooyinka gaadha xataa magaalooyinka lagu isticmaalo haantan marka la lulayo dumarka soomaaliyeed waxay suugaan bay ku isticmaali jireen oo heesa u gaara baa jira bal adiga oo maxaad naga xawsin kartaa ka xawsan tahay heesihii u gaarka ahaa haanta heesaha u gaarka waxaa waaye anigu inkastoo horta runtii waxaa waaye agabkan waan dhex galay uma badnayn dhaqankayga baadiyaha uma badnayn laakiin islaamaha xoogaha aan kasoo xigtay ay leeyihiin oo ku ruxayaan waan maqlaaya haantooy burooy burubax furfuroo furweyn soo rid qaqaboo qabaal buuxi laba qaalin kula buutay laba qaar laguu kala go geeljiro ku qooraansay macnaha geeljiraha ma ogtahay ma isticmaala looda macnaha way ku dacaydanaya haantay macnaha ku canaananayaan geeljiro ku qooraansay naaya haantooy bulooy ii bax marka ayaan xawaagasaan macnaha marka geeljiro ku qooraansayna waxa laga wadaa inta badan caanaha la lulaa ma caanihi geela ma aha macnaha xoogaa taasay ka wadaa macnaha hadduu caano geel yahay ma dhihi lahayn geeljiro ku qooraansay marka sidaa macnaha arrintaas waxaa yeelayay waa loodii dadka sidaa dhaha maaragtay waagii hore reer waamaha geela lama aqoon jirin loodaa macnaha ay dadku waamaha aad u isticmaali jireen loodii ooman haddii loo imaado oo geel socda markii la arkay waxaa leeyahay oo loodii baaba oomane geelo muxuu soo dooni loodii baaba oomane marka waxaa waaye qofba wixii markaa uu haya dhaqankeeda oo aad isticmaalaa kana waa fahnay caanihii oo dhan baa lasuu geenaya intaan lolmada gaadhin aad baan u garanay noo dhig shaygaa noo soo qabo waxaan u malanayaa aad buu uga bedelan yahay waxyaabihii kale aan isticmaalaynay aan maanta dhan sheegaynay kan aad buu uga bedelan yahay dad badan waxaa laga yaabaa hadda oo Soomaali ah maanta tan hadday arkaan inay isweydiiyaan magaceed halka qaar badan oo kale oo Soomaalida aan garanaya bal magaceeda waxaa la yiraahdaa bahashan koorta geela loo xiraa macnaha inkastoo aan geelay ahayn laakiin waxaa maqal igu ah geela macnaha hasha dhunta iyo macnaha dawaadiga ah oo harta iyo midda hordhaanta labadaba waa lagu xiraa waa lagu yiri marka sababta loogu xirayo waa neefkii haddii uu tago oo la waayo sanqadha la soo raaco macnaha middan waa hordhaan ma ogtaa geela horey uga go'aysaa tanna waa geela dabaadiga ah oo gadaal marka kaas markuu waxaa la yidhaahdaa waataa tii ugu dambaysay baa soo socoto macnaha shanqartaas waa dareenka ama oorta macnaha la raro oo keligeed duurka daaqa waa lagu xiraa macnaha sidii loogu raaco sharqanta loo raaco sidaa macnaha maqalka ku qabo inkastoo aan reer baadiye ahayn laakiin sida la ii sheegay waa maasan tahay halkan mid kale weyn shay kale weyn aanoo yaala oo aad u weyn haye kana muxuu ahaa shaygan ma ka samaysna muxuu ahaa geed wuxuu ka samaysan yahaa dhoob waxaa la yidhaha burjikooyinka hadda la keeno laga keeno xaggaas ma ahaan tan waxaa laga sameeyaa meelaha jiimooyinka oo webiyada ah dhoobka webiyada laga sameeyaa waa dhoob waxa waaye burjiko si caadi ah loo isticmaalayo loogu shubtaa dhuxushaa lagu shubtaa waxa la waxaa doontaa lagu karsan karaa
marka waa barkashada dabka lagu shidaayay oo maaragtay oo iyada dhinaca hidaha dhaqanka inta badan dadku waxaan isticmaalaan haddeer barkajooyin meelo kale laga keenay laakiin kan waa wax lagu farsameeyey deegaanka aan joogno waa dhinaca hidaha dhaqanka dhinaca hidaha dhaqanka waa dhoobkeena loo keenaa intaa lagu sameeyaa gabdha sameeyaa noo jooga waa la kariyaa dhoy waxaa la kariyaa ciidiyaa la kariyaa saana laga soo saaraa farsamadaana kusoo saarnaa oo ah burjikadii dhammayd sida midda naloo keena dhoobka naloo keena iyo ayada annaga waxba iskuma keen dhaanta waa noo burjiko aad barkajadii waan fahnay shaygaa yar ee maaragtay dhalaalaya soo qabo kan waa idimada naloo keeno waa laakiin annaga waxaan dheeri kaga dhiganay naqshada annaga markiis hore muxuu ka samaysan wuxuu ka samaysan yahay idimada la keeno la sameeyo oo laga soo sameeyo dhulka iyo ceelbuur baa laga soo sameeyaa muqdisho nooga imaada marka naqshadaan annagaa ku sameynay asaga wuxuu noo yimid oo cadaankaas keli ah naqshada annagaa u sameyn oo saarano idinkii loo isticmaalaya guryaha lagu uumiyo waa unsiga loo isticmaala waa tahay daawadayaal haddaan mar kale idin xasuusino waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka hidaha hal abuur waa barnaamij aan uga hadalno hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed barnaamijka maanta waxaan kusoo booqanay oo aan ku sugannahay xarunta horumarinta haweenka Kismaayo oo ah xarun ku taala magaalada Kismaayo xaruntan oo tababaro loogu sameeyo dhinaca xirfadaha haween Soomaaliyeed dhinaca kale waxa xaruntan ku kaydsan agab badan oo dhinaca hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan sii wadi doonaa intiina hadda nagu soo biirtay waxaan sharaxaynay agab badan oo meesha noo yaalo dhinaca hidaha iyo dhaqankana waxa agabka noo sharaxaysay hooyaluul cali balwo oo kamid ah haweenka ka hawlgala halkan marka waxaan aan sii guda geli doonaa qaybaha dhiman alaabtii meesha taalay agabkii meesha yaaleen hooyaluul noo sii sharaxdo waa kana unsigi waan karina waa iibinaa saan u xirxiran yahay waa unsigi lagu shidaayay muxuu ahaa idanka oo guriga lagu udginay waa carabti guriga waxa waaye micnaha naagta marba hadii gurigeeda ka soo carfin uusi ka soo carfin waa ma micnaha mid hore ma badis marka dhaqanka Soomaalida markii laga hadlaayo micnaha waaba jiraada hadaan subax casirkii la arkaba cuudka ka carfin faraha cidiyaha cilaankaada lala cajabin aniga ceebo way maalkiina way iga celis marka waxa waaye waa mid ugu koowaad oo loo isticmaalo carafta marka labadan way isleeyihiin waa la isku isticmaalaa anaga karina waa gartaa baa maasan tahay kana waxaan u maleynayaa daawadayaasheena aad uga dhargeen iminkana aan aragno tan waa dambiil waaye maadaama ay bacihii micnaha carradii qabsadeen farsamadan haddaan wadnaa waxaan rabnaa in aan micnaha bicihii inaan joojino dhaqankii hore aad waxaa loo isticmaali jiray dambiilaha bac ma oolin xoolaha hadda dhammaanayo oo maxay ahayd leeyahay neefkaas bac buu ku dhintay geedkay qabsata bacda wuu dhintaa oo waa geedkaas kansal waay qofkii micnaha xoolihii cunaana kadaalika waa meeshii wixii geed dilay neef duunya ama dhaafaayo marka waxaan rabnaa aan ku wacyigelinaa micnaha rabnaa inaan gaarsiino meel walba gaarsiino wacyigelin aan u sameyno in dambiilihii dib loogu soo laabto kana waa dambiishii oo loo isticmaalayay in suuqa lagaga soo adeegto oo waliba muddo badan jiraysa oo aan ahayn wax hal mar la isticmaalayo muddo badan qofku haysan karo marka iyadana si fiican baan dareensanahay in dadkana daawanaya uga dhargeen halkan waxaa yaala qalab kale oo aad u qurux badan oo calanka Soomaaliya uu ku dhagan yahay bal kan noo sharax calanka Soomaalida anaga waxa waay waan soo sameynay waan ku dhajinay macnaha sharaxaad aan ugu talagalnay in aan meesha aan ku quruxsano maadaama calanka Soomaaliya yahay sharaxaadan anaga u sameysanay waa tahay daawadayaal wali waxaan ku sugannahay xarunta horumarinta haweenka Kismaayo oo xarun xirfado oo ah xarun tababaro dhinaca xirfadaha lagu sameeyo haween Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo sidoo kale xaruntan waxaa ku kaydsan agab badan oo dhinaca hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iminka waxaan doonayaa inaan ka xog wareysto xaruntan iyo sababtii loo asaasay iyo muddadii ay jirtay hooyo Abshiro Khamiis Ismaaciil oo ah gudoomiyaha xaruntan oo maanta aan ku sugannahay barnaamijkan aan idinka soo tabinayno hooyo Abshiro ku soo dhaw barnaamijka Jubbaland TV markaa bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayaa u mahadsantiin TV-ga Jubbaland waan dhawahay aad baan adigana kugu mahad celinayaa ugu horeyntii xaruntan oo lagu magacaabo xarunta horumarinta haweenka Kismaayo sababtii ka dambeysay markii hore in la asaaso fikirkan cidii iska lahayd maxaad noo sheegi kartaa
bismillaahi magacaygu waa Abshir Qamiis Ismaaciil waxaan ahay gudoomiyaha xarunta horumarinta haweenka Kismaayo. fikirkan wuxuu naga yimid anagoo haween ah maskaxdanada markaan fikirnay maadaama dhibkii iyo korintii ilmaha waxay nagu dhacayaan dhaqankii Soomaalidana uu nabad guuray iyaan ku fikirnay waxaana aasaasnay 2013 bishii labaad. waa gartay marka waxyaabaha aad doonaysaan meesha inaad ku qabataan marka horeba waxa meesha iga muuqanaysay inay ku qoran tahay in tababaro dhinaca xirfadaha haween loo sameynayo haddaad ku hormartid oo aynu soo noqono agabkan meesha yaala bal tababarada aad dadka u qabataan maxaa ka mid ah xarunta waxay iskugu jirtaa sida dharka loo kariyo harqaanka dambiilaha iskuulkii waxbarashadii ah koofiyadihii dhammaan xarunta tababarada aan bixin waxaas ay ka mid yihiin waxaan leenahay harqaamo ardada dhigata marka la isku daro waxay gaaraysaa 100 kuwa harqaamaha iyo kuwa iskuulka iyo kuwa xirfadaha kala duwan ay sameeyaba. waan gartay marka haweenkan waxay baranayaan sidii loo sameyn lahaa waxyaabaha kala duwan oo laga yaabo qaybtood inay intooda badan yihiin agab hidaha dhaqanka agabka marka iyo kan kale meesha yaalaba xagee la geenayaa hadhow muxuu idinka idin taraya sida hadda aad arkaysid waxaan sameynaa gabdho waxaa jirta dharka kariya islaamana waa la baraa dharka sida loo kariyo markii la bara kadib sidan ayaa loo karinayaa dharka hadda sidaad arkaysid kow markii la bilaabayo sidan ayaa loo xirxiri marada waa noocan markii la kariyana waxay noqonaysaa noocaas. waan karinaa haweenka xarunta horumarinta Kismaayo ka ardada la tababara yaa qaada waxaan geenaa suuqa waxaan u iibgeynaa xaafadaha waxaa haddana dalabaad nagu sameeyaa hoteelada ayagoo aan dharka saas ugu karino kadibna lacagtanadaan ka qaadano. waa gartay tan waa xirfad ugu talagasheen in haweenka Soomaaliyeed ee xaruntan soo booqda ama xaruntan maaragtay ku xidhan ay xirfadan ay ku shaqaystaan oo ay noloshooda ku maareeyaan agab badan baa meeshan yaala oo dhinaca hidaha iyo dhaqanka oo nooc walba oo loo isticmaalo nolosha caadiga ah agabkaas meeshan yaala agabka inaad meesha marka hore keentaan fikirkan sidoo ku dhashay fikirkan wuxuu ka yimid gabdho Soomaaliyeed oo isku darsaday maskaxdooda iyo maalkooda iyo fikirkooda waan xaafad Kismaayo kamid ayaan marka hore qol ka kireynay muddo 3 sano meeshaas ayaan ku haynay kadib waxaan u soo wareegnay xaruntan waxaan gaarnay heerka maanta aad arkaysid waxaan sameynaa dharka la kariyo gabdhaha soo gadgada shahooday ka reebtaan oo reerka biilkii kula noqdaan anaga la fiibay noo keenaan waxaan gaarnay heer agabkii ay hay'adaha naga dalbadaan iyo jaanibta wadanka imaato nalaga iibiyo lacagtanada faa'iidadana aan ka reebna la fiina aan xoolo kale ku dirsano heerka maalinkaas ilaa maanta aan asaasnay waxa gacanta ku haya haween Soomaaliyeed waxa xoolahoodii ka bixiyay haween Soomaaliyeed waxaan aad arkaysan reerkana ka biilnaa meesha kiradeedii iyo ardada waxoodana aan ka bixinaa. waan gartay agabkan meesha yaalo hidaha dhaqanka ah oo meeshan ku kaydsan idinka ma sameysaan intiisa badan oo waxaan arkaa inuu yahay dhaqan ka yimid dhinaca baadiyaha idinkuna magaalada Kismaayo gudaheeda ku sugantiin yaad xiriir la leedihiin oo agabkan idin keena dadka idin keena iyo idinkase maxaad ku macaamishaan oo qofka soo sameynaya deal ama soo sameynaya ameelkan waqti badan buu gelinayaa maxaa idinka qofka u celisaan xiriir noocees idinka dhaxeeya maxaad maartay idinka dadkaas u macaamishaan waa runta aad baad u mahadsan tahay waqtiga maanta horumar baa la gaaray waxaa jirta telefoonada niman baadiyo joogo telefoon haysta oo is aqoonin yaan la hadalnaa lambaradooda nala siiyay waan la hadli maanta waxaan leeyahay intaasoo shanla iyo intaasoo kur ah iyo intaasoo dhiilaan u baahanahay intaas imisa cishaad iigu samaynaysaa muddo ii qabanaya waan heshiinanaa markuu diyaariya alaabta qof baan dirayaa magaalada jooga sida magaalada Afmadow Doobley Qooqaani Taabdo alaabtan intaas ay nooga timaadaa qofkii baa tagaya alaabta iga soo jaaj gareynaya lacagtii baan EFC ku tooraya ana baabuurta baxaysa la soo saaraa. waa gartay marka laga soo tago inaad agab badan haysaan oo runtii la dhigi karo nooc kasta oo laga isticmaalo lagu hidaha dhaqanka Soomaaliyeed agabkiisa badankiisa waa haysaan misana waxa jira aqal Soomaali oo ah meesha maartay muhiimka waa ama hooyada hidaha dhaqanka Soomaaliyeed dal aad u weyn baad haysataan ma idinku jirtaa halka inaad aqal ka taagtaan aqal Soomaaliya si dadku ay u arkaan oo u daawadaan ama laga yaabo dadka qaarkood inay ku dhiraan inay aqal dhistaan
ها إن عيمسك على مسارك أقلده كل سنة أننا يا أسكلهن وأنا يبسني وأنا لسه سميي إن هررك قار قبل أن تكون سميي annaga lahayn saddexda aqal ee ku dhisnad caymiska madaxweynaha cali masaarkiisa haddana halkan qola naga kireysatay kirey ku maqayn markii la keenana waan ku dhiseynaa markaan dhisno kadib waan kaskaashano dadka martida maayada noo yimaado maalinkaas cambuulada iyo bunka intaan sameeyno ayaan meesha u gelino lagu cunaa waa gartay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay waxaa jira dad Soomaaliyeed ama haween Soomaaliyeed adiga kula mida oo runtii aan ku baraarugsanayn hidaha dhaqanka Soomaaliyeed iyo sida ay qof walba waajib ugu tahay inuu ku dhaganaado hidaha iyo dhaqankiisa haweenka maxaad fariino hawada u marlaad maxaa kula talin lahayd adoo fursadan ka faa'iideysanay هذا يا دوم هتسنتين تفيجة جبلان أنك وهوينك الصوماليات وحن كل رجلنهن وحدبك وكل عيارته أنك wiilka odaga dhimanaya wax kasta fidmo dhan anaga nagu dhacaysa maadaama anagu dhibkii reerka iyo biilkii iyo horumar la'aan ayna qabsata haweenka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahayn inay isku tashadaan oo hidiyo dhaqankii dib u laabtaan ay sideena iyo si lamid oo ka qurux badan ay sameeyaan maxaa yeelay wadankii oo idil wuxuu gaari lahaa horumarin maxaa yeelay markuu sidan u mashquulo hadda jaanis aan qof kale kaga mashquulo ma haysto waxaan ku mashquulayaa in ardadii in sida in u dhigan lahaayeen sabuuradii dhamaatay anaga jabkanaga ka bixinayna waxa agabkan laga gatay oo hadhow anaga lacag keelna cid kale oo naga caawisa male marka haweenka Soomaaliyeed waxaan dhila isku tashado farsamada aad taqaanaan waa la iibsanayaa halka hada fadhiisto xabad koofiyad samayso ama salli samayso $20 buu joogaa salliga markaan suuqa ka soo gado tii samayso maanta lacag bay u fadhinaysaa hadii guriga iska fadhido waxba heli mayso laakiin farsamada ay taqaaniday dhaqanka day banaanka oo la soo baxdo annaga ka iibsanayna iyadoo waxay ku gaarisaa horumar biilka reerka way helaysaa magacna way ku helaysaa waxa aan hadda wax u dhigno waa haweenka Soomaaliyeed ilmihii ay dhaleen ama ingiriiska iyo xisaabta aan barna ama harqaanka aan barno waa haween Soomaaliyeed carruurta ay dhaleen marka sida ay si limid ayagana ha sameeyaan ha isku tashadaan yaan leeyahay waa tahay daawadayaaltaasi waxay ahayd Abshiro Khamiis Ismaaciil oo gudoomiyaha xarunta horumarinta haweenka Kismaayo oo aan ka xog wareysanaynay xaruntan sababtii loo asaasay iyo qalab agabkan meesha yaala iyo waxa uu ka tarayo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed barnaamijkii hidaha Hal-Abuur toddobaadkan aan ku soo booqanay xarunta horumarinta haweenka Kismaayo waxa idin la socodsiinayay aniga Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Deera dhinaca kaamirada iyo sameynta barnaamijka waxa gacan weyn ka geysanayay saaxiibkay Cabdulqaadir Jaamac Gaboobe barnaamijkan ka xigay inta aan ku kulmi doono waa Axmed Cabdullaahi Jaamac iyo guud ahaan bahda barnaamijyada ee Jubaland TV oo isku duuban oo idinkaga tagaya sidaa iyo amaana Allah